Taageerayaasha fanaanada Xaawo Axmed Weheliye Xaawakiin oo kaashanaya jaaliyadda Soomaalida London ayaa xaflad lagu weyneynayo isla markaana taaj loogu saarayo ku qabtay magaalada London toddobaadkan. Xaawo Axmed Weheliye Xaawakiin oo dad badan oo taageerayaasheeda ka mid ah horey u oran jireen Princess Xaawakiin waxaa toddobaadkan boorka ka jafay isla markaana riyadaas u rumeeyay taageerayaasheeda London. haweeney u hadasha jaaliyadda Soomaalida London oo lagu magacaabo Qaali Beerlula ayaa ku dheeraatay sababaha ku kalifay in Xaawakiin ay shahaado sharaf guddoonsiiyaan isla markaana taaj ay u saaraan. Waxa ay sheegtay Xaawakiin inay tahay fanaanad qaran isla markaana mar walba u taagan ka qayb qaadashada barnaamijyada 1 Luulyo iyadoo sidoo kalena aad ula shaqeysa jaaliyadda Soomaalida London. Dadkii goobta ka soo qayb galay sidoo kale waxa ay sheegeen in Xaawakiin sababaha loo guddoonsiinayo taajka iyo shahaado sharaftuba ay tahay inay tahay Xaawakiin gabar edban oo degan isla markaana dadka jaaliyadda ka mid ah aad ula shaqeysa. Haddaba fanaaniinta ka soo qayb galay xafladaas waxaa ka mid ahaa Cabdimaaxi Muuyo Qooto, Koronto Aadan iyo sidoo kale fanaanada Najax iyo fanaanada weyn ee Shamsafood. Hase yeeshee waxaa dad badan isweydiinayaan talow Xaawakiin taajku waaba loo saaray maxay dareemayaan fanaaniintii iyada xulufada isla ahaan jireen beri isla markaana uu soo kala dhexgalay madmadow iyo goomaar badan oo la isdhaafsaday baraha bulshada. Hadda waa mataanteedii hore oo mataan kala yeelatay talow sidee u arki doonaan marka Xaawakiin taajka ay u saareen taageeradeeda. Talow ayaguna mataash bay saaran doonaan xaflada kale inkastoo dhawaan la filayo in ayagana xaflad ay sameystaan. Goomaarku halkaasi ayuu ka soo socon doonaa sida muuqata. Balse Xaawakiin oo ku sifeysan in ay tahay gabar aad u degan isla markaana edban waxaan ka hadal lahayn in dad badan ay yiraahdaan Xaawakiin hadiiba ay ku muteysatay edabteeda iyo deganaanteeda taajkaasi. Xaawakiin